labada qof ee muslimkii ay isguursanayaan ama guurka iyo axwaasha ku tacalluqda طبعا نكاح marka la yiraahdo nikaaxu aad buu gudawan yahay wax maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 marka laakiin waxa jira nikaax haduu yahay min jahati talaaq iyo wixii lamida ma bala gali karo kaas waqtigiisu waa dheeraan lahaa laakiin waxaan ka hadlaynaa nikaaxa waxa weeyaan sunnanimadiisa inuu yahay sunnadii anbiyadii hore rasuulkeena ka horeysay calayhi salaatu wasalaam oo uu yahay sunnadii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo waxyaalo tacalluqaad la leh oo ay kamid tahay wanaaga zawjada saalixada ah zawjka saalixa ee wanaagsan iyo xawaashiisa zawjadu xaq ay ku leedahay odaygeeda ama odaygu xaq ay zawjadiisu uu ku leeyahay iyo in loo baahan yahay intii suurtagal ah in meherka la fudaydiyo guurka iyo kharashkiisa iyo axwaashiisa in la fudaydiyo tacalluqaad waxoogaa ka daba iman hayo buraanburka ama waxoogaa boodboodka loo boodboodahay iyo axwaashiisa sida ay noqonayso inay wanaagna noqon karto macsiyana ay noqon karto intaasi waa inta muxaadaradeena ay ku saabsan tahay waxaan jeclaan lahayn waqtigu hadduu noo saamaxo bal waxoogaa yaroo jeebkeena aan kaga darsanayno oo ah حواشة ما أنت تاجن ما أنت مصائبتي يو في تنت تاجن وحير إن أنك إشارة إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحوله وإن خفتم الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وحوله إلهي سبحانه وتعالى haddaydan ka baqdaan inaad garsoori weydaan ayada sabul nuzuulkeedii hore wuxuu habal oran jiray jaahiliga hore waxa dhici jirtay in kolkuu ninku dhinto gabadhiisa iyo hantideeda uu nin saaxiibka u dardaarmo oo saaxiib ahaan jireen ninka saaxiibka wuxuu sameeyay gabadhii buu guursanaya asagoo hadafkiisu yahay inuu hantida gabadhu ay leedahay inuu qaato islaamku markuu yimid dhaqankii wali wuu socday marka dadkii way dhibsadeen oo inay gabadhii ay ugu tala galeen xoolaheeda darteed inay ku qaataan iyo haweenkooda kale u garsoor waayeen bay ka baqeen markaasuu ilaahay wuxuu yiri wa in khiftum hadaydan ka baqdaan allah tuqsitu inaad u garsoor weydaan fil yataama dumarka agoonta ee guursanaysaan xoolahooda darteed u guursanaysaan fankixuu guursada ma taaba wixii wanaagsanaada lakum min an-nisaa dumara mathna laba guursada wa thulatha صدح قرصة ورباع أما أفر إلهي وحنوفة صحيح سبحانه وتعالى ودين تنوصع هذا كمذا هدون ننك الرقي أودي كارو إنه لما ناقود قرصة لكن شروط باكو حيرانتهاي وحيكو حيرانتهاي إن هدو باهاتو إينا العدالة في شقينيس هداي هالكلية كوكو فيلانتهاي ما بلو باهنا طلبات يخرج كده وحد أدمله haddii waad u baahan tahay laakiin cadaaladaada aadan ogeyn inaad cadaalad iyo garsoor sameynayso ayadana waa laga nahiyo cadaalad darrada ku dhicin baa lagu leeyahay sidaas ayaana xaq iyo cadaalad u dhow marka aayada waxaan ka qaadanaynaa daliilku yahay in ay tahay guurku uu yahay sunno ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo jideeyay oo anbiyadii hore iyo rasuushii hore iyo rasuulkeena sunnantiisa kamida aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala wa ankihul ayaama uguuriya kuwa nin la'aanta ah oo minkum idinka in kamida uguuriya wasaalihiina uguuriya kuwa wanaagsan min cibaadikum adoomadiina iyo imaakum haweenkina adoomada dumarka in yakunu hadayhim fuqara dad fuqara hadayhim yughnihum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim ilaahi wuxuu amrahayaa dadka awliyada ee aabayaasha iyo adeerayaasha iyo walaalaha iyo awliyaasha inay u guuriyaan gabdhaha guur la'aanta ana rag la'aanta ah ayimka waxa la yahay ayaamada jamcu ayimna waxa la yahay qofka garoobka waa la yiraahdaa qof kasta oo dumar ah iyo nin kasta oo guur la'aanana waa la yiraahdaa ama reer la'aana ama dooba marka ilaahay wuxuu amrayaa subxaanahu wa ta'aala war dadka gabdhaha dumarka ee muxuu rag la'aanta ah ee idinka idan kamida u guuriya leeyahay taas waxay laazim ay naga dhigaysaa ninku markuu gabadhiisu sidii Umar bin Khattab uu sameeyay oo kale markuu nin wanaagsan uu arko
حتى سنة وحا إن محمانك ونكن قبل هذا أتكو دلفت وقصدي عمر بن الخطاب أو أبو بكر يكلا قصة عثمان عمر بن الخطاب مركي قبل يسي حفصة هاي أي جروب كنقطي يوحل إلى أبو بكر وبندقوا يدي وحنا وين قبل يدكو جوري هرت عثمان بو بندقي عثمان ما صوت شنبو دي قبل رسولك الله نوقي صلى الله عليه وسلم جواب بوسع عليه وحوري هدان تشدون أرنت فيري إما سوى بحنا نقولسن كرهات بس وكتي أبو بكر با محمد يهذا نمر لوضو بندق وحوري وحان ربا أبو بكر وقبل إذا حفصين وكو جوري أبو بكرنا وحو مغلي رسولك الله يوشيغ هيوله حفصين وقولسان ربا أبو بكر مركا لبا درن با قفستي سيرتي رسولك إنه فرشلو عليه الصلاة والسلام مو ديري هذا من أقبلك رسولك إنه كبحي إنه قال لي أنوره إن ما أقبلك وسك آمسي عمر ماشى هو حناقي مركي دبو حاسوب بحدي إنه رسولك حفصة جورسدي مركي حفصة رسولك جورسدي يو أبو بكر عمر وياري وحول أبو بكر وحلاقي بين أي حناق سنتها أو كل أنت حفصة جورسدي الآن اسك آمسي ها وانك أدم كوا حناق سن هيبو ويا جواب ذي قولوا ويبو وحول وحن وآمسي حفصنا مدين كرينا دايما مرهبين رسولك إلهي سيرتي سنة فشل مرة من مركا وحن سوق هاي إن رسولك وكبحه إنه جورسله مركا وحن سنة هذا نك رجع نفتيسه هدو أركنين وناكسن أو أهل الدين هو أهل الأخلاق هو أهل الكرم وناكسن إن قبل دي سو كده البوي لا جنيه قبل دي الجورستان ربع إلهي مركا وحنا أمر هاي إلهي ورد قبلها رجل أنت أجورية أولية دي أو إذا كان كمذا كوا أضامدي يا محمد هرجع دوما بأضانت الذي هن أجورية كوا أضانت هذا فقرايهن إلهي بفضل يسكت دقهاي آيات كالله سبحانه وتعالى وحنا وشيء هيا وحور رسول كان إلهي كوي ولقد أرسلنا رسلا من قبل وحنضرنا النبي الله محمد الرسول بنهرتا صادرنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وحنا ويالي جري هوان عيال marka waxaad ka garanaysaa aayada inay tahay guurku yahay sunnadii aanbiyadii inagu horeysay rasuulkana kaleey salaatu wasalaam iyo rasuulkana maxamed sallallahu alayhi wa sallam ilaahay asagoo guurka dumarka inagu manaysanay inay nicam ilaahay yihiin ayaa wuxuu leeyahay wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ilaahay aayadkiisa iyo nicmadiisa iyo manadiisa waxa kamida inuu idinka abuuray naftiina haween nabi ilaahay aadam buu alayhi salaatu wasalaam ilaahay abuuray markuu nabi aadan abuuray nabi aadan waxa ku adkaatay noloshii keligii u noolaa markaasaa hooyadan xaawo feedhiisii laga soo saaray noloshii halkaas ayay ku degtay ku asaxay marka ilaahay asagoo halkaa inuu manaysanaya wuxuu yidhi waxaa ilaahay aayaadkiisa iyo nicamtiisa ka mid a in naftiina uu idinka abuuray haween haddiina la odhan lahaa haweena la abuurayna la odhan lahaa xayawaanka kale wuxuu doonta la odhan lahaa sidee bay noqon lahayd aad bay noloshu noogu adkaan lahayd maxaa ilaahay ugu talagalay inaad ku degtaan oo ku nasataan ninku si kastoo nin raga u yahay aqoon u leeyahay hanti u leeyahay deeqsi yahay guri hadduusan lahayn asagaa wax kafaala qaado u baahan asagaa cunto u baahan oo miskiin gabadhu si kastay u wanaagsan tahay ilama guri ay leedahay hesho wanaageedii ma soo baxay marka ilaahay waxaan yeelay buu ilaahay mawadi iyo raxmo labadii aan shalay is aqoonin waxba isugu jirin ba kolkii nikaaxay dhaxmaro oo muxuu ahaa reernimadii dhaxmarto oo awlaad dhaxmarto ayaa waxay noqonayaan labada dadka soo jecel bay noqonayaan waa nicmo ilaahay ugu manasay subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadow allahin ka baq allaha nicmadiisa iyo qudradiisa iyo awoodiisa naf kaliya idinka abuuray intuu naf kaliya aadama abuuray haddana zawjadeeda xaawahayd ka abuuray oo waxaan adduunka maanta ku noolaad aragtaan ka bas iyo ka muxuu ka farcamiyay oo ka tarmiyay allaha aydan isku bariyeysaan iyo qaraabanimada inta waa ilaaliyo marka ilaahay intaas oo aayad kale wuxuu nagu sheegayaa guurku inuu yahay sunno wanaagsan oo jid wanaagsan uu yahay oo uu yahay jidka kaliya ninka la yaa shaytaan markuu guur dhacayo waxyaabaha ugu necab yahay kamid yahay shaytaanku guurku xalaal inuu dhaco markuu qoys burburahayo dalaaq dhacayana waxyaabaha ugu jecel yahay kamid yahay Anas bin Malik waxa laga wariyay radiyallahu ta'ala anhu warda wuxuu yiri saddex qof oo saxaabatu rasuulillaah kamida ayaa rasuulkeena Muhammad haweenkiisa u tagay sallallahu alayhi wasallam xaafadiisa aad ayaga oo wareysanaya rasuulka cibaadadiisa
marka waa looga warramay rasuulku siduu u tukadiyo suu qur-aanka u aqriyay suu habeenku cibaadaystay saddexdii nin baa waxaa la yaraatay cibaadadii rasuulka waxay yahan rasuulkan haddii cibaadayso intan tahay isaga dembigii kiisii horey kii dambe waa la dhaaf annaga fadhi nooma yaallo saddexdii nin waxay go'aansadeen nin wuxuu yidhi habeen oo dhan an salaad baan u taagnaanhaya nina wuxuu yidhi maalin o dhan waan soomahaya nina wuxuu yidhi wax haween la yidhaha on guursanaya ma jiraan rasuulka ayaa maqlay sala allahu calayhi wasalam markaasuu ka daba yimid oo intuu u yeedhay wuxuu yidhi waryaa ma nimankii sidaa yidhi baad tihiin haabaa la yaa rasuul allah laakiin waxaan u jeedno inaan khayr ziyaadino shar uma anaan soconin wuxuu yidhi anigaa ilaahay idinku aqoon badan anigaana idinku cabsi badan mar waan seexdaa marna waan muxuaha waan soo toosaa waan tukadaa dumarkaan guursadaa waan soomaa marna waan afuraa ninkii sunnadeeda nacaana ani iga mid maha marka maxaa laga qaadanayaa sunnadii nebi maxamed bay ka mid tahay salawaatullaahi calayhi wasalaamu guurku waa shay sunnaa oo maxbuuba mustaxaba oo rasuulkeeni moxameda laga soo gaaray sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo muxuaha asxaabu sunanku way wariyeen waxaa laga wariyey abi abiyu alansaari radia allahu tacaala canhu rasuulkeeni moxameda muxuu yihi sala allahu calayhi wasalam afar waxay ka mid tahay ambiyada sunanteedii bay ka mid tahay xishoodka qofku inuu xishoodo waxa munkarkaa kolka la samaynaya in laga xishoodo lama baahna macruufka marka la safaraya in la xishoodo maaha laakiin waxyaabaha akhlaaq xumada ah xishoodka uu qofku ka xishoodo waxay ka mid tahay ambiyadeena muxuaha ambiyada sunanteedii bay ka mid tahay tacadurka in la cadirsado ama barfuunka la cadiraysto siwaaga in la cadaydo had iyo goor qofku uu cadaydo iyo nikaax guurku sunnadii ambiyada ayay ka mid yihiin waa xadiid saxiixa oo imaam axmed bin xambal iyo tirmidi iyo keyrba ay wariyeen cabdullaahi bn cabaas radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu yihi rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa sayruurata fi lislaam wax doobnimo la yidhaha islaamka kuma jirta maba ogola islaamku inuu qofku doob noqdo aan weligiiba guursanin hadday gabar tahayna looma ogolo inay intay doobayso iska guumaysoodo lama ogolo hadduu nin yahayna inuu doobeeyo iska guumaysoobo lama rabo yani waxaa laga rabaa sunnadii rasuulkeena ka mid sala allahu alayh wasalam labada qofba inay guursadaan oo awlaad islaam oo ahlu tawxiida ay soo ziyaadiyaan oo dawladda islaamka ay weyneeyaan oo daa'irada iyo xuduudda islaamka ay ballaariyaanba loo baahan yahay marka laa sayruurata fi lislaam yani wax doobnimo la yidhahda ama cusaabnimo la yidhahda oo islaamku ogol yahay ma jiro anas ibn malik radi allahu tacala canhu wa ardaah wuxuu yihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam xubiba ilaya annisaau watiibu wajucilat quratu cayni fi salaat wuxuu yidhi waxaa la ijeclaysiiyey haweenka iyo tiibka rasuulka ilaahay salaaduna indhahayguna waxay ku qabowsadaan salaada ilaahay subxaana wa tacaala marka ka warran wixii la yidhi uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la jeclaysiiyey haweenka iyo tiibka waxa barfuunka iyo cadarka la yidhahdo ishaydu waxay ku qabowsatana waa salaada ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaan xadiid ka qaadanaynaa ta'kiidka iyo adayga uu leeyahay guurku inuu yahay sunno mu'akada oo rasuulkeena laga soo gaaray sala allahu calayh wasalam xadiidkaasi waa xadiid saxiixa oo xaakim uu ku wariyey sanadka muslim uu ku wariyey riwaayo kale waxaa ahayd nasaa-i riwaayadii axmed bin xambal laba riwaayo wariyeen xubiba ilaya min addunya annisaau watiibu wajucilat quratu cayni fi salaat adduunyadan waxaa laga jeclaysiiyey laba shay haweenka iyo diibka cadirka labadaas adduunyada laga jeclaysay adduunyadiinan aad u kala cararaysaan dumarkii waxaan ka jeclahay laga jeclaysay buu yihi udugii ama barfuunka iyo cadirka salaadana waxaa la yeelay ishaydu waxa keliya ay ku qabowsatay ku degtahay salaada wey xadiidkaas saciid bin jubayr oo taabici ahaa oo ninkii xajaaj bin yuusuf uu dilay ahaa ayaa wuxuu yidhi cabdullaahi bin cabaas ba wuxuu igu yidhi war saciidow guurso ummadda nebi maxamed dadka ugu khayr badnaay dadka ugu haweenka badnaa bay ahaayeen oo ninba ninku haddii la weydiiyo ma aha guur ah ku dhufoo ka dhaqaaq inaad tan iska guursato tan meheriso tan ka tagto tan dayacda lama ogolo laakiin qofka la sheega waa qof mas-uulah oo matalan afar islaamood baad qabtaa afartii waa ku degan yihiin mas-uuliyaddii baad qaadaysaa waad dhaqaalaynaysaa awlaaddoodii baad tarbiyaynaysaa ninna wuxuu qabaa hal naaguu qabaa halkaa basuu mas-uul ka yahay yaa khayr badan ka afarta qabaa khayr badan waayo ninkani afar qoys oo islaama ayuu muxuaha ayuu maamulhayaa adiguna maxaad maamulaysaa hal qoys inta halkaa qoys aad maamulayso khayrkaagu jooga kana asna afartaa maamulhayuu jooga nin baa laba qoys maamulahaya ninna saddex buu maamulhayaa kan saddexdaa ka khayr badan
نبى صدح مامله هي ننا أفر بو مامله هي كان أفرت مامله واقع خير لكن معها إسكا جورسو كما هذلنا أنت تنمهر إسكا دقاق أو معها دور كلا مرة واقف كمسؤول مركو جورسو جورك حقوق ذو الهامبرن هيوي مركو يجرب عبد الله بن عباس سعيد بن جبير ومد النبي محمد كو وخير بنا كو وحوينك بنا يا حي وأثر